kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaanu idiin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay dagaalka balad xaawo dhinacyada Jubbaland iyo dowladda federaalka oo gurmadyo xoogan kala helaya maxaa ka jira in ciidanka Jubbaland ay ka goosteen ciidamo markaasi la sheegay in ay aadeen dhinaca Cabdirasiid Janan oo ay iska dhiibeen faahfaahinta xogtaas ayaan idila wadaagi doonaa iyo xaqiiqadeeda sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa khasaaraha ilaa haatan la soo warinayo ee dagaalkii ka dhacay magaalada balad xaawo balse intaan guda galin marka koowaad soo dhawow muuqaalkan like saar siina share garee si dad badan uu gaaro magaalada balad xaawo ee gobolka Gedo ayaa waxaa maalmihii u dambeeyay ay martigelisay dagaalo soo noqday oo markaasi u dhaxeeya ciidamo kala taabacsan Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya inkastoo dagaalkan uu daba dheeraaday oo muddo 2 isbuuc ku dhow uu ka socdo halkaas haddana ma jiraan wax horumar ah oo dhinacyada ay ka sameeyeen dagaalka wali waxa la kala joogaa aagagii dagaalka uu ka bilowday markii hore waxaana dhinacyada ay isweydaarsanayaan qoryaha culus ee madaafiicda taasoo saameyn ku yeelatay guud ahaan dhismayaashii magaalada oo burbur xoogan gaarsiisay shacabkii magaalada balad xaawo mar hore ay ka barakaceen intii ku hartayna maanta ay isaga sii baxeen haddaba dagaalkii maanta ee magaalada balad xaawo waxa uu dhaliyay khasaare xoogan masaajidda ku gubtay oo madaafiicda ay haleeleen sidoo kalena dhismayaal kale oo dad shacab ay leeyihiin ayaa burbur xoogan ka soo gaaray dagaalka balad xaawo ee dowladda federaalka iyo Jubbaland waxa uu haatan maraya marxaladii ugu adkayd midba midka kalena waxa uu ku eedeynayaa dagaalka in uu isaga markaasi gadaal ka riixayo warar waxaa jiray soo shaabaxay oo la isla dhaxmarayay oo sheegayay in ciidamo ilaa 40 in Jubbaland ay ka goosteen haddaba xog aynu raadinay oo ku saabsan wararkaas la isla dhaxmarayay ee ku saabsanaa in ciidamo ay ka goosteen Jubbaland waan u kurgalnay waxaana soo xaqiijinay in aysan jirin haba yaraatee wax ciidana oo Jubbaland dhankeeda ka goostay inaysan jirin balse ay jiraan maleeshiyaad beeleed markii hore ka barbar dagaalamayay dhinaca Jubbaland kadibna masaalixdooda ka dhex arkay dhinaca dowladda federaalka rabayna in ciidamada loo diiwaan geliyo sidii ay ballan qaadeen saraakiisha hogaaminaysa ciidanka dhinaca dowladda federaalka ee ugu horeeya Cabdirasiid Janan waxaana qiyaas ahaan lagu sheegay ciidankaas maleeshiya beeleedka ah in ilaa 20 ay gaarayaan oo isku hal qoysa waxayna aadeen dhinaca ciidanka dowladda federaalka balse ma ahayn ciidan Jubbaland u diiwaan gashnaa ama kamid ahaa ciidamada Jubbaland ee ka dagaalamaya magaalada balad xaawo ee gobolka Gedo waxa ay soo taraya baaqida kala duwan ee ka kala imaanaya culimada diinka waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyagoon ugu baaqaya dhinacyada ku hardamaya gobolka Gedo in ay joojiyaan dagaalka iyo colaadaha isla markaana wax walba lagu dhameeyo wada hadal iyo miiska korkiisa magaalada balad xaawo oo hore isgaarsiinta looga jaray waxa caawa gabi ahaanba ka sii maqan oo laga jaray korontadii oo wax adeeg koronto ah kama jiro magaaladu waa mugdi dagaal ayuu gobolka ugu dhacay wax isgaarsiin ahna kama markaasi jirto taasoo sii cusleenayso xaaladii magaalada ay ku sugnayd markii hore maadaama dagaalka goor dambe oo maqribadii la isla soo gaaray inkastoo xilliyada habeenka marka la gaaro inta badan wax dagaal ah uusan ka dhicin haddana waxa la rumaysan yahay in dhinacyada ay wadaan diyaar garow xoogan oo mar kale subaxnimada berri ah oo taariikhda ay ku beegan tahay 30 bisha 7
ahna maalin Arbacaa in markaa ay dhinacyada iswajihi doonaan, waxayna ku jiraan labada dhinacba diyaargarow xoogan hadday ahaan lahayd in gurmadi ay helaan, hadday ahaan lahayd in dhinacyada saanad ciidan ay soo gaarto. waxaana qorshuhu yahay in intii caawa dhinacyada meedadkooda ay kala aastaan, dhaawacyadooda dabiibaan, subaxina waa berigiiba laisku bilaabo. xogihii ugu dambeeyay inuu helayna waxay sheegayaan in dagaalka berri uu ka duwanaan doono dagaaladii hore, isla markaana ay macquul tahay in dhinacyada mid uu ku adkaado magaalada Balad Xaawo marka loo eego diyaargarowga xoogan ee dhinacyada ay ugu jiraan caawa. sidoo kale waa dhinacyada Jubbaland iyo dowladda federaalka waxay wadaan dadaallo xoogan oo midba midka kale uu doonayo in ciidamada ay isu soo dhiibaan dhinaca kale. tusaale, Jubbaland waxay rabtaa in ay ballanqaadyo u sameyso ciidamada kale ee dowladda federaalka oo isu soo dhiibaan, dhinaca kalena mid la mid ay doonayaan inay isku soo dhiibaan oo ballanqaadyo ay sameynayaan. waasaan xogta ku helno. arrintan waxay markaasi muujinaysaa heerka uu gaarsiisan yahay dagaalka adag ee dowladda federaalka iyo Jubbaland. wixii warar ee ku soo kordha dagaalka magaalada Balad Xaawo halkan ayaa si toos ah ugala socon doontaa. fadlan rukumo halkan oo subscribe ka saar si aysan kuu dhaafin wararka kuuguna soo dhacaan. muuqaalkan like saar oo sii share garee si dad kale oo badan uu u gaaro. mahadsanidin.